Assalaamu calaykum. Maanta waxaan tusi doonaa filim. Waxaana la sameeyay 2009 oo la yiraahdo Castaway on the Moon. Haddii aan qalmaan laga subscribe iyo saara mahadsanidin. Magaalada Seoul, ninkan oo lagu magacaabo Kim Seon. Ninkan oo ku jira xaalad adag, shaqadiina uu waayay, saaxiibtiisina ay kala tageen. Dayna uu ku daraqmay. Markaas ayuu go'aansaday inuu isku tuuro wabiga. Si kastaba ha ahaatee, halkii uu ka dhiman lahaa, wuxuu ku dhacay xeebta magaalada u dhow. Markuu ogaaday in qarqashadu ayna shaqaynayn, markaas ayuu go'aansaday inuu ka boodo dabaqyada caanka ah ee 63aad. Laakiin markuu isku dayo inuu ku laabto magaalada, wuxuuba joogaa jasiirad aan lahayn wado. Taleefankiisa gacantuna ma shaqaynaya, markaas ayuu qorraxda dhigay si ay u qalasho. Dabeed uu seexday isagoo isku duubay wargeysyo hore. Subaxdii wuxuu ku toosay dhawaqa doon ag maraysa. Markaa wuxuu isku dayay inuu dareenkooda soo jeediyo. Laakiin rakaabku kaliya ayuunbaa arkay, wuxuu u malaynay inuu u gacan haadinayo oo kaliya. Kadib markuu caawin ku qoray ciidda dusheeda, mar labaad ayuu tijaabiyey taleefankiisa, wuxuu ogaaday inuu shaqaynayo. Nasiib darro, baytari ayuu dab ka dhacsan yahay, markaa wuxuu u baahan yahay inuu taxadaro. Kadib ayuu wacay 911 kuwaas oo malaynay inuu ku ciyaarayo. Markuu u sheegay inuu joogo jasiirad u dhow buundada, ayay ku jareen. Marka xigta wuxuu wacay saaxiibtiisii hore, taasoo xasuusisay inaysan rabin inay la hadasho, oo ay sidoo kale ku xirtay. Kaarintaan wacin qof kale wuxuu wacay raadiyaha, kaas oo aan dhagaysanin codsigiisa caawinta. Ilaa ugu dambeyntii taleefanku ka damo. Hadda waxa kaliya u fura waa inuu ku dabaasho webiga, ma aha hawl fudud. Markay biyuhu qaboojiyaan, si kastaba ha ahaatee wuu isku dayaa. Isla markiiba wuxuu ogaaday inay tahay qalad, sababtoo ah weligii ma uusan dabaalan. Intuu qalqoomay maskaxdiisa waxay soo martaa xaaladihii niyad jabkee noloshiisa. Aabbiyo ka niyad jabay inuu aanu dabaalan karin halkii uu bari lahaa dabaasha. Haddii aad wax baratid, maalin ayuu ku anfacayaa haba yaraatee. Nimcadaan haynana ma ka aaweyna ayuunbaan ogaanaa qiimaheeda. Markuu xeebta dib ugu soo laabtay, xasuusahaasi waxay ku baraarujinayaan inay wax faa'iido aan lahayn. In dib loogu noqdo maadaama la soo dhaafay. Sidaa awgeed wuxuu isku dayay inuu soo afjaray soo geed ka soo laadlaada. Markuu ku dhow yahay inuu sameeyo, wuxuu maqlay qayladhaan ka soo yeeraysa difaaca wadaniga. Kadib markay dhameeyeen, wuxuu la tacaalayaa xadhigga dhowr biriqsi. Kadib bartii ayuu ka tagayaa markuu xanuun dareemo. Wuxuu isxasuusinayaa inuu u baahan yahay inuu istajiyo. Wuxuu si qoto dheer u galay kaynta, si uu qashin-qubka waxa uu cuno uga helo. Wuxuu helay ubax selfiya ah uuna nuugaa, aad ayay u macaan yihiin. Wuu ooyaa oo wuxuu gartay inuu dhibkan ku sii jirayo. Marka xigta wuxuu cabay biyaha wabiga oo hadda ka hor una dhandhamin. Marka xigta wuxuu cunay qaar ka mid ah boqoshaada. Wuxuuna damcay inuu dab ku shido isagoo isticmaalay hal ulo oo kaliya. Laakiin ma shaqay, sidaa awgeed wuxuu isticmaalay iftiin uu watay. Habeenkii marka la soo gaadho, wuxuu isku ilaalinayaa dab. Wuxuu dib u fiirinayaa noloshiisii hore iyo kaarkii deynta lagu lahaa. Dabeed wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo isagoo garanay in aanay cidi maqlayn amaba si arkayn. Intaa kadibna wuxuu iska siibay surwaalkii, isagoo ruuxaya miskaha una sheegaya adduunka inuu nolol fudud ku haysto halkan jasiiradda. Subaxdii xigta wuxuu bilaabay inuu ku wareego dhammaan jasiiradda si uu u soo qaato dhammaan qashinka waxtarka leh. Wuxuu sidoo kale helay cagad shaambo ka dhammaaday, wuxuuna helay doono ee qaab shimbir. Wuxuu soo jiiday halkii uu deganaa, wuxuuna ka buuxiyey caws, taasoo ka dhigaysa meel ammaan uu si kalsooni ugu seexan karo. Wuxuu sii waday cunista boqoshaad, waxay ka caawinaysaa inuu dhawaaqo qaabka shimbiraha, isagoo debin uga dhigayo codkiisa wayna ka duulaan. Marka xigta wuxuu samaystaa qalabka kalluunka lagu soo qabsado, umana soo qabato ku guul daraystaa. Awoodna uma leh inuu geed dheer fuulo si uu ukumaha uga xado. Waa mid ka mid ah isku dayga fuulidda uu ku guul daraystay, ilaa ay shimbirtu ku dhoobto saxaro. Markaas ayuu tagay webiga si uu timaha ugu soo meedho saabuun uu helay. Saabuuntan ayaa hadda biyaha wasakhaynaysa oo dishay qaar ka mid ah kalluunka, wayna u fududaatay intuu dubo ayuu ku casheeyey. Hadhaagii ka soo harayna dheri ayuu kaga tegey. Markuu soo kacayna wuxuu arkay shimbirtii hadhaagiisa cunaysay oo meyda. Shimbirtina intuu soo qaata ayuu cunaa. Dabeed maalinta wuxuu ku dhammaystay isagoo iska jiifo caajis quman. Dhanka kale, gudaha magaalada, Jim Canyon oo ah haweeney da'yar oo nabar foolxun ku leh foolkeeda, waxay ku nooshahay nolol aad u liidata. 3 sano kama bixin qolkeeda, gees walbana waxaa buuxiyey qashin. Albaabka waxaa ku yaala quful si aanu qofna u gelin. Daahiyaduna way xidhan yihiin, sidaa awgeed iftiin yar baa gudaha u soo gala. Kim Jan oo waalidkeed uga mahadcelinaysa cuntada ay u keeneen awgeed. Maalin kasta oo ay ka bixiyaan biilka internetka, taasoo muhiim u ah sababtoo ah wax la qabsatay shabakadda bulshada. Halkaana waxay ku dhajisaa sawirro ay kala soo degtay internetka, waxayna ku been sheegaysaa inay yihiin waxyaabo nolosheeda dhabta ka dhacaya, si ay jawaabo dhaba u hesho. In dad aadan aqoon internetka kala hadashid way fudud tahay, laakiin kelmad kuma odhanayso waalidkeed. Markastee hooyada weydiisay inay wax u baahan tahay, waxay ugu jawaabtaa fariin qoraal ah. Reecda marka loo soo dhigo waxay ka qaadan jirtay oo kaliya bariis iyo caleenta badda, sababtoo ah waxay aad uga taxadirtaa tirada kalooriyada ay cunto. Halkani waxay noqon kartaa qolkeeda, laakiin waxay weli ku haysaa sharciyo adag. Waxay ku seexataa baalig baraf ah oo ay ku hayso armaajo. Waxay toostaa 8 subaxnimo. Aabeed markuu ka tago waxay cuntaa 122 kaloori. Quraacda kadib waxay dhajisaa 3,000 tallaabo. Ka hor 9 subaxnimo waxay soo gelisaa baraha bulshada. Waxay sugtaa 12 markay hooyad baxdo si ay musqusha u gasho. Waxay haysataa 525 kaloori oo qadada. Waxay saartaa 6,000 tallaabo si ay u dheef shiido. Waxay heshaa hawo nadiif ah kadib waqti badan ay ku qaadato kombiyuutarka ilaa uu habeenku dhacayo. Waayadeeda sawirada dayaxa. Waxay jeceshahay dayaxa sababtoo ah ma dareemi karti kalinimo. Haddii aysan jirin cid kale si ay maalinta u dhammayso, waxay ku gaadhaysaa 10,000 oo tallaabo. Ma aha sababta caafimaadka, laakiin waxay ka dhigaysaa inay dareento inay heshay maalin wax soo saar leh. Kadib way seexataa iyadoo isticmaalay saacad jalad. 9 subaxnimo markuu aabaheed soo laabto, marka laga reebo nidaamka
joogtada ah wuxuu yimaadaa sanadkii 2 jeer. Magaaladuna waa faaruq sida dayaxa oo kale. Markaa sidaa darteed Jang-eun waxay xidhataa koofiyadeeda. Waxay qaadaa sawiro inta lagu jiro maalinta isbedelkeeda. Si kastaba haatee marka waxay kamarada ku aragtay wax aad looga naxo. Erey caawina ku dul qoran ciida iyo in uu dhown isku dhameeyo xadhiggeed dushiisa ah. Tani waxay ka dhigaysaa in niyad jabto waxayna aadaa qolkeeda. Waxay isku daydaa inay seexato. Saacado kadib way awoodi weyday inay iska hubiso. Way nafistay markay aragtay isagoo nool oonan isdilin. Waxay bilowday in isaga sawiraan ka qaado. Internetka ay ku caajistay taa beddelkeeda waxay bilowday daawashada ninka. Ilaa ereygii caawinta lagu bedelo helo. Intaa kadib sawir ay ka qaaday oo ay daabacday iyadoo gidaar ku dhajisay sawiradeeda dayaxa. Halkaan ay kala socotay. Aan dib ugu noqono jasiiradda. Kim Soo-yoon wuxuu isticmaalayaa ul si uu ugu ciyaaro. Wuxuuna bilaabay inuu ismashquuliyo. Markay doontu timaado halkuu kaalmo ka codsan lahaa ayuu isqariyaa si aynan u arkin iyagu. Intuu dhuumanayo wuxuu la kulmay bac ay ku jiraan baasta madow. Welina baakadka kule gudaha. Intuu sariirtiisa dib ugu laabto ayuu bacda ka soo ursadaa. Intaa kadib wuu seexdaa wuxuuna ku riyoodaa isagoo baastadii cunaya. Markuu hurdo ka kacay ayuu go'aansaday inuu isku dayo inuu isaga iskiisa u samaysto. Wuxuu shiidayaa geedo kala duwan isagoo rajaynaya inay beddel wanaagsan u noqon doonto. Laakiin macna male markuu biyaha ku daro waxay noqdaan dhoobo. Wuxuu soo qaataa kalluun wuu ooyaa isagoo dib u fikiraya. Isagoo aad u rajaynaya inay u noqoto baastadii madoobayd. Isagoo isku daya inuu seexdo wuxuu ku mashquulayaa shanqadha shimbirta. Waana marka kaliya uu isleeyahay in saxaraha shimbiruhu ay wax ku beeri karaan. Waxayna jawaab u noqon doontaa dhammaan dhibaatooyinkiisa. Shimbiruhu waxay cunaan iniinaha. Hadduu dheefi waayo iniintaas waxaa laga yaabaa inuu awoodo inuu beero. Kim Soo-yoon wuxuu helay carro wanaagsan isagoo eegaya halka ay ku nool yihiin dirxiyo. Wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo dhulka si uu ugu beero dhammaan xashiishka uu ka soo xoqay doonta. Wuxuu samaystay wax cagihiisa ilaalinaya isagoo isticmaalaya caagadaha. Wuxuu samaystay dhagax uu ku qodo dhulka. Intaa kadib dharkiisa ayuu ka sameeyaa qof taagan isagoo jeebka jaakada ku riday wax uunan u baahnayn. Shaqo badan ayuu qabtaa wuuna dhididaa. Wuxuuna arkay inuu dhididku yahay milix. Kim Soo-yoon wuxuu bilaabay inuu leefo jirkiisa oo dhan isagoo ku faraxsan inuu dhadhamiyo milix muddo dheer kadib. Ereyga ku jira xigmadan ayaa la soo gaabin karaa rajo, taasoo ah hab wanaag lagu qeexayo wax beerta. Waxaasoo dhan waxaa kameradeeda ku aragtay Jang-eun oo hadda daawanaysa muddo 2 bilood ah oo ay daabacday sawiradiisa fara badan ee ku dhajisay gidaarada. Waxay go'aansatay inay doonayso inay la xidhiidho ninkan. Habeenada ka mid ah waalidkeed markay seexdeen way labisatay koofiyadana way xidhatay oo ay ka tagtay guriga. Waxay mashquulisay ilaaliyaha albaabka iyadoo kasoo tuurtay raboot. Markasta ay suurtagal tahay inuu qof ku arko wadada walba dhinaca gadaasha ay kaga dhuumataa si uusan qofna u arag. Ugu dambeynna waxay timaadaa buundada. Fariintii ay daabacdayna waxay ku riday dhalada waxayna ku tuurtay webiga si uu u gaadho isaga. Subaxdii dambe waxay eegtaa fariinta ciidda saaran laakiin way ka niyad jabtay inay aragto inaanay wax isbedelin. 3 bilood ayaa kasoo wareegtay. Kim Soo-yoon wuxuu la qabsaday ku noolaanshaha duurka. Subax walba jimicsi ayuu sameeyaa. Wuxuu eegaa dabinada uu u dhigay kalluunka. Si fududna geedo ayuu fulaa si uu xado xoogaa ukumo ah. Beertiisa ayuu xanaaneyn jiray markasta uu dhidido wuxuu ku qabtaa dhididkiisa dhalayar si uu ugu milixaysto hadhow kalluunka. Subaxyada ka mid wuxuu ogaaday in shaqadiisa adag ay guulaysatay. Ubax ayaana kasoo muuqday beertiisii. Tani way dhiirigelisay isagoo raadinaya qashinka. Ayuu helay dhaladii ay ku jirtay fariinta. Wuxuuna furay xaashida marka ugu horreysay wuxuu malaynayaa inay madhan tahay. Laakiin wuxuu gaaray dhammaadka wuxuuna helay hal eray oo ah hello. Hadda wuxuuna ogaaday inuu qof soo daawanayo isaga. Kim Soo-yoon ayaa dib u celiyay surwaalkiisii fikir badan kadib. Wuxuu go'aansaday inuu fariin cusub ku qoro ciidda. Wuxuuna ku qoray sidee tahay tani aad ayay ka farxisay iyada. Sawirkiisa ayayna ku daabacday fariinta. Habeenkaa kadib waxay samaysaa wax kasta oo dhuumaalaysa si ay ugu dirto isaga fariin kale oo cusub. Kim Soo-yoon wuxuu arkaa fariinta markan fariintu way sahlan tahay. Waxayna ku soo qortay waan wanaagsanahay. Mahadsanid adiguna. Wuxuu ugu jawaabay inuu wanaagsan yahay una u mahadceliya. Kadibna wuxuu u tilmaamay inuu haysto saaxiibkii oo la yaab leh. Gadaashiina waxaa ka baxaya hadhuudh taasoo ka dhigaysa inuu farxad la ooyo. Maalin ayay go'aansatay inay la hadasho wiil doon wada. Waxayna u dirtay dhinaca jasiiradda iyadoo ugu dhiibaysa cunto. Kim Soo-yoon wuu naxay markuu arkay baastada madow laakiin wuu diiday. Wuxuuna u sheegay inuu ku soo dhiibtay Jang-eun isaga waxaa rajo u ahayd inuu cuno baasta madow. Wiilkuna intuu u dhigo ayuu kaga tagaa. Aakhirkii iyadana waxay aqbashay inay ku cunto suxuunta. Markay ku cunto suxuunta waxay siiyaan rajo. Subaxdii dambe ayay hooyadeed ka furtay oo ka yaabisay hooyadeed oo si toos ah ula hadashay kana codsatay inay u keento dheer iyo iniin sababta waxay doonaysaa inay beerto galley. Marka xigta waxay u dirtaa qoraal Kim Soo-yoon iyadoo le waan ka xumahay kaasoo ugu jawaabay sawir. Waxay sida ahaataba maalmo badan ayaa dhaafa oo maruu beertiisii ugu dambeyntii khudaar ku filan ay siisay. Wuxuu isku dayaa inuu ka dhabeeyo rabitaankiisa qaaliga ah. Wuxuu shiidaa hadhuudhkii uu ka dhigay bur kadibna biyo ayuu ku qasaa si uga sameeyo baasto. Markuu dhammeeyo wuxuu ku shubaa budada dhadhanka ah oo uu helay bilo ka hor. Wuxuuna ku daraa xoogaa khudaar ah iyo ukun ilaa ay u ekaato baakadka. Dabeed wuxuu bilaabay inuu cuno isagoo ku oynaya sida ay u macaan tahay. Junior ayaa sawir ka qaaday isagoo wax cunaya waxayna ku dhajisay gidaarka laakiin kadib way seexan kari weyday. Markaasay barkin soo qaadatay dhirtii ay beerisay soo ag dhigatay.
aakhirkiina halka ayay ku seexatay. Warqadda xigta ay u dirtay Kim Soo-hyun waxay leedahay hambalyo oo hadda baahi degdeg ayuu qabaa si uu la kulmo. Wuxuuna soo qaaday taleefankiisa wuxuuna iska dhigay inuu la hadlayo. Ka hor intaanu xeebta tagin fariin cusub ugu qoran ciidda. Wuxuuna ugu qoray kuma tahay. Yuunyan markay aragtay way naaxday waxayna go'aansatay inay internetka ka daabacdo. Sawir qurux badan markay timid buundada way keeni kari waday inay u dirto. Tan iyo markaas ma soo dirin iyadu fariimo dheeraada. Aad ayuuna uga murugooday wuxuuna ugu qoray ciidda sabab. Laakiin tan kale waxay ka dhigaysaa Kim Soo-hyun inuu aad uga naxo. Waxay go'aansatay inay joojiso daawashada isaga oo ay dib ugu laabato nolosheedii baraha bulshada. Laakiin markay soo gashay waxay ogaatay in dadku ogaadeen sawiradeeda oo ay ka xadeen. Waxayna uga tageen faalooyin nacayba. Habeenkii duufaan xooggan ayaa timid. Yuunyan waxay ka daawanaysaa qolka armaajooyinka. Dabeeshiya biyaha ayaa daaqada uga soo gala oo burburiya sawiradeeda iyo dhirteeda. Kim Soo-hyun ayaa dhibaatooyin daran ku haysta jasiiradda. Roob ayaa baabiyey beertiisii doontiina dad ayaa ka qaaday. Subaxdii qoraxda ayuu fadhiyaa. Markay Jang-un ay hubisay waxay aragtay isagoo eray ku qoraya ciidda. Aad ayuuna ugu cadhooday adduunka sababtoo ah looma ogola xataa inuu tan sii haysto. taasoo aan badnayn isla markiiba laba nin ayaa ka soo muuqday jasiiradda waxayna u sheegeen Kim Soo inuusan joogi karin halkaa uu cararay iyadana waxay ka daawanaysaa kameradeeda xeebta oo ay la yimaadeen doomaro kale oo badan shaqaale nadiifin ah waxa u yimaadeen si ay u nadiifiyaan jasiiradda duufaantii kadib sababtoo ah tani waa aag ilaalin ah oo u dhow dadweynaha Kim Soo ayaa isku dayay in la dagaalamo dhammaan shaqaalaha markabka se wuxuu si lama filaan ah u jaray dareyska ninka dhulka ayuuna ku dhacay isagoo is soo dhiibay nimankii marihiisii ayay dib ugu celiyeen kadib magaaladii ayay ku soo celiyeen iyagoo kaga tagay meel cidla oo kaga tagay meel aan habboonayn Kim Soo ayaa markaa go'aansaday inuu dib ugu laabto qorshihiisii hore oo ah inuu ka boodo dhismaha 63aad oo uu u raacay bas Junyan ayaa waxaasoo dhan kaga daawanaysa kameradeeda si geesinimo leh aan la filin ayay uga baxday qolkii iyadoo aan haysan dharkeeda gaarka ah oo aan xidhnayn koofiyad si ay u hesho Kim Soo markay timida goobtii nimanku kaga tageen isagoo ka dhaqaaqay balse markay daba socoto sheeko wareedka dadka aan kala sooca lahayn ayay ugu dambeynna soo gaadhay boosteejada basaska nasiib daraad ayay u daahday Kim Soo mar hore ayuu raacay baska waxa uuna weli haystaa kaarkiisii baska kaasoo weli ilaa hadda shaqaynaya Junyan oo u malaynaysa inay lumisay fursad ay kula kulmi lahayd isaga laakiin markaa dabeed waxaa yimaada difaaca wadaniga oo bilaabay qaylo si ay u bilaabaan layli cusub taasoo sababta in muddo inuu basku istaago Junyan waqti ma lumin oo way u carartay iyadoo soo gasho oo u soo dhawaata shaki la'aan si ay isku barto isla markiiba u gartay qofka ay tahay labadooduba way isku dhoola cadeeyeen intay ooyeen intaa kadib baska ayaa gariira gariirkuna wuxuu ka dhigay inay sii wataan safarkooga gacantay isqabsadaan taasoo egna isgacan qaadayaan waad ku maadsantahay daawashada maca salaama